السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تان واتلادو سدحدا بيش سدحاد لبكوني لباتنكا قضبدا أدكم مغل دونتان برامج كيلنا وحا قيبكا دكدا أو لهكية كولانكي شالي عياريهنا كتر سنة كوحدة هرسيد أو ديبو هيلي دونتو ناديقا أرسنال أو قيبكا نقطة وريقس ديداد ترتنك اف اي كابكا كوحا تشالسي ليفربول أو كلا نذاق وذا قادن دون عاوة مانجستر سيري وحقي جنس صحيحة دافع رير برازيل اللغو مقعويان كواتو غانرس أو قرشاها كودر ستين اي لبي كونتنوين أو غريكولاس وريكتو دافع كترسن أربي ليبزيغ كلودي برافو أو قرق أسر إنك تيجيستا كوحدة مانجستر سيري بلويس أو كاقو هريسا كوحا كالي دون يعيريهان كأليكس تاليس حل عارات كبريمير ليغا أو لدميستريو البابدا غرومدا أو حيران هدي كورونا فيروس وسيفيدو أرسنال أو لغو بورييني ودقاقدو راول جمانيسي وبدل أغو نقض اللاعب كألكساندر لاغازاتي اسكو آد كترتن كالنيشن ليغاها أو لسمين يو عاوا وركا لوغو هذا الهين تبدأنا برامج كودك مغلي دونتان ومركا ليا برامج كحولك يا شبابكم يا شبابكم وذا عندك كني كيدين ويدين وذا هاي تذكر وين كلام سوداني اي بوش انا داليا كول داليا hagaag dhegeystayaal markale ismaqal wacan barnaamijkana ayaan sii guda galaynaa waxaan ku horeyn doonaa horyaalka Soomaaliya Premier League shalay kooxda dekada ayaa hakad la geliyay kulankii ay ciyaartay kulan kalena galabta ayaa la ciyaaraya bal sheekooyinka ciyaaraha horyaalka heerka koobaad ee dalka waxa wax nooga sheegay stuudiyaha nugula sugan Daariq bal ciyaartii shalay kooxda dekada ay la kulantay taakada shalay dekada taaka loo dhigay wayna ku dhibtootay inay 3 dhibco nadiif ah kulankii shalay ay hesho geemkii weynaa ee shalay midnimo iyo dekada dhexmareen kusoo ilaaday eber oo wax gool ah la iska dhalin waana lugtii labaad oo ay sidaan ku kala tagaan labadan kooxood lugtii hore gool ku kala tageen shalay goolkiiba waa labaayay oo eber ay midnimo iyo waliba dekada ku kala tageen iyadoo macallin Yuu Cali ay kooxdiisa ay shalay wax walba sameysay laakiin aysan u noqon inay guuleystaan oo ay 3 dhibco nadiif ah helaan tan waxay fursad u tahay kooxaha kale ee ku soo dhow kooxdan sida kooxda Elman iyo Horseed oo miisay 10 dhibcood leh in kooxdan loo qabtay marka shalay fursad ay iska lumiyeen ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee dekada oo shalay hal dhibic ay halka ka heleen galabta hanaaye ee horyaalka Soomaaliya Premier League waxa wada ciyaaraya kooxaha kubadda cagta ee gaadiidka iyo Raasan oo horyaalka 10 kooxood ka qayb galaya qaybka kulankan kii ka horeeyay waxay ku soo ilaatay 3 gool iyo eber oo Raasan ayaa adkaatay gaadiidka laga adkaaday ciyaartaas oo ka dhacday garoonka jaamacadaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir laakiin tan galabta waa lugta labaad injiriis ayana ka dhici doontaa Raasan iyo gaadiidka lugta labaad marka iyadoo gadaamo wiilashiisa Raasan hadda ay ku jiraan kaanta lixaad ee kala sareen horyaalka Soomaaliya Premier League gaadiidkan waxay fadhiyaan kaalinta sagaalaad ee kala sareynta horyaalka Soomaaliya Premier League wajiga labaad koox walba ay soo bedeshay waxay doonayaan in koox walba dhibic ay hesho ama ay kooxda kale ee dhibaca ka qaadato marka Raasan iyo gaadiidka kulankoodu wuxuu yahay mid xiiso badan hore isku soo arkeen 3 gool iyo eberna Raasan ku soo badisay Raasan galabta waxa uu ciyaaray ciiraankooda cusub Cabdimajid Banteke kaas oo ay ka soo qaatay kooxda kubadda cagta ee Hegan laakiin waxay fasaxeen laacibkii khadka dhexe ee CD marka qaab isbedelasho ama kala bedelasho ayuu noqday CD ay Raasan iska direen Cabdimajid soo qaatay marka Hegan CD u laabtay ninkaasna way soo fasaxeen marka galabta kulankiisa ugu horeeyay oo horyaalka ayuu ciyaari doonaa maadaama Jibriil Xasan Fariid oo dhaawac ku seegayay kulankan kulamadii ugu dambeeyay oo dhaawac kaga maqnaa sida awgeed isaga booska loo keenay watahay kooxda Horseed dhanka kale waxa ay dib u leeysaa ciyaaryahanno ka maqnaa bal xidigahaasi kooxda qaybta ka ahaa ee u soo laabanaya Cabdijoon wiilashiisa ee Horseed wajiga koowaad ee horyaalka waxa ay ku dhameysteen kaalinta labaad ee kala sareynta iyagoo 8 dhibcood iskale isbuucan kulankooda wajiga labaad ee kulankooda koowaad ciyaarayaan ciyaartooyda ugu wanaagsan hadda Horseed ay joogaan marka loo fiiriyo horyaalka Soomaaliya Premier League kooxaha ka qayb galaya iyadoo sidaas ay tahay ayaa haddana war maanta waxaa soo yeeray in ciyaartooy laba ah oo qadka dhexe ku wanaagsan Soomaaliya ay u imaanayaan kooxda kubadda cagta Horseed waana laacibka la yiraahdo Cabdikariin Quwaaye oo ay goor hore la saxiixdeen laakiin safar dibadda galay ayay soo ceshanayaan kaasoo Turku maqan iyo Axmed Xasan Macaani kaasoo isagana koox fara badan soo maray sida Saxafi Elman iyo waliba dekada oo horyaalka la soo guuleystay
marka waxay noqotay warka ugu weyn hadda suuqa kala iibsiga ee Soomaaliya in dekada nimanka leer horseed ay helayso qubaay iyo waliba ninkii yiraahdo maxamed xasan waa axmed xasan macaani marka labadan ciyaartooy khad dhexe ka ciyaaraan waa ku wanaagsan ee hadda horyaalka Soomaaliya soo maray labadaba dekada ay kula soo guuleysan horyaalo iyadoo ay sii joogaan Ibrahim Reste iyo Xasan Cabdinuur Geesi Xasaasi ayuu Cabdijoon hadan helaya labadan ciyaartooy warar lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in horta xidig la yiraahdo qubaay si rasmi waxa u leh kooxda kubadda cagta horseed wala sixta heshiiskiisa laba sano la sixday mar hore laakiin safar dibadda soo galay oo dhanka Turkiga hadda uu soo laabanaya macaanina markii ugu dambeysay wuxuu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta Elman waqtigiisa dhamaaday isagana Turkiga hadda uu isku soo diyaarinayay tababar xooggan ku soo qaatay isagana waxa la filayaa in haddaysan galabta ay soo gaarin magaalada Muqdisho ay bari soo degi doonaan marka labadan ciyaartooy horseed ayaa la saxatay dib u soo laabanayaan horyaalka Soomaaliya Premier League kujiga labaad ayaa laga yaabaa inay ka soo muuqdaan waxaas la isweydiinayaa sidoo Cabdijoon u maareen doono qubaay macaani xasaasi oo joogo Ibrahim Nuuni Hashimi marka ciyaartooyda ugu wanaagsan khad dhexe ayaa isugu imaanaysa kooxda kubadda cagta horseed oo loolan xoogan ugu jirto horyaalka Soomaaliya Premier League shalayna loo qabtay dekada oo taaka loo dhigay fursad waxay haystaan oo hadda kula dhibco noqon karaan kooxda dekada maadaama dekada 22 dhibcood ay tagtay horseed iyo Elman 18 dhibcood ay leeyihiin Elman toddobaadkan waxaa ku dhagan kooxda kubadda cagta Hegan halka kooxda kubadda cagta horseed iyagana Jasiira ay la ciyaarayaan watahay aad baad u mahadsantahay Daariq geesiyaasha dalku guuda cadalkeeniyo kaygeeno gudaha iyo dibadda وحقاقه markan aan eegno bal ciyaartii naadiga Arsenal ay qayb ka noqotay wareegistidaad tartanka FA Cup-ha naadiga Arsenal ayaa si sahlan uga qayb noqotay wareegga sidamaadka tartanka FA Cup-ka kadib markii ay u awoodeen kooxda heerka saddexaad ka dhashay ee Bournemouth kooxda Bournemouth ayaa marti loo ahaa balse waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad ee horyaalka League 1 iyadoo oo naadiga inta badan kubadda haysata qaybtii hore laakiin waxa ay fursad u heli waayeen in ay ka faa'iideystaan kubad haysashadooda iyo fursadahooda tababare Mikel Arteta oo koobka FA Cup-ha qaaday isagoo ah kabtanka kooxda Arsenal sanadkii 2014 ayaa arkay dhaawac xun oo qaybtii hore ka soo gaaray laacibkiisa Lucas Torreira kaas oo laga saaray daqiiqadii 16aadba waxaana lagu bedelay ciyaaryahanka Dani Ceballos daqiiqadii 45aad ee ciyaarta ciyaaryahanka lagu magacaabo Socrates ayaa hoggaanka u dhiibay naadigiisa wax yar ka hor waqtigii nasashada kadib kalaas uga yimid ciyaaryahanka lagu magacaabo Nelson جول سقراطيس انتظرنا الدقيقة الثالثة من الوقت البديل ودخولنا في الوقت الدقيقة الرابعة إصرار في نهاية الهجمة من ريس نيلسون نفذ ركنية أولى أبعدها دفاع balse qaybtii xigtay ciyaaryahanka lagu magacaabo Eddie Nketiah ayaa dhaliyay goolka labaad waana qaybta labaad ee ciyaarta isaga oo hoggaanka saddexda dhibcood u sii xaqiijiyay naadigiisa Gunners كورة جول يتمكن انكيتيا ادوارد انكيتيا يتمكن من إضافة الهدف الثاني الهدف الثاني في توقيت مبكر قلت سيعمل أرسنال على تدعيم الأسبقية عرضية كورة Gunners-ka ayaa ah kooxdii ugu horeysay ee iska xaadirisay wareegga sidamaadka FA Cup-ka iyada oo kulamada wareegga xiga ee la ciyaari doono ilaa iyo maalinta Khamiista ah haddaba ciyaartan waxyaabihii laga diiwaangeliyay marka aan eegno naadiga Arsenal ayaa maraysa 11 kulan oo aysan wax khasaare ah la kulmin tan iyo khasaaro 2-0 ah markii ay kala kulantay kooxda Leicester ee waayihii Unai Emery oo ahayd kulankii ugu dambeeyay oo macalinkaasi ku soo leeliyay banaanka kooxda Arsenal Gunners-ka ayaa gaartay quarter final-ka tartanka FA Cup-ka 5 kamid ah 7 xilli ciyaareed ee la soo dhaafay balse waxay tahay markii ugu horeysay tan iyo 2016-2017 markaas oo ay ku guuleysteen koobka tan waxa ahayd kooxda Bournemouth khasaaradii ugu horeysay ee kaga soo gaartay garoonkooda Frattenberg tan iyo September 2019 markaas oo ay ku qaabileen kooxda Southampton tartanka Carabao Cup-ka waxayna kala kulmeen 4-0 khasaare ah waxaase ay soo gabagaboobeen ama la soo gabagabeeyayba 19 kulan oo ay unbeaten garoonkooda ku ahaayeen laacibka lagu magacaabo Socrates ayaa ah ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Greek ah ee gool ka dhaliyay tartanka FA Cup-ha tan iyo ninka lagu magacaabo Apostolos
Fellows kaas oo kooxda Nottingham Forest isagoo ka tirsan gool uga dhaliyay ciyaar ee ka hortagay naadiga Hull bishii January ee 2018 Socrates ayaa gool dhaliyay dhammaan 3 jeer oo waayraahday 3 shuud oo bartilmaameedyo ah uu sameeyay xil ciyaareedkan isagoo ah laacib Arsenal laacibka lagu magacaabo Eddie Nketiah ayaa isaguna dhaliyay 3 gool 4 kulan oo la soo dhaafay oo ku soo bilowday ciyaaraha Arsenal laba ka mid ahi waxa ay ahaayeen kulamada FA Cup-ka ciyaaryahanka lagu magacaabo Reece Nelson ayaa ku lug yeeshay 5 gool 8 kulan ee ugu dambeysay ee uu ku soo bilowday line-up-ka kooxda Arsenal isagoo dhaliyay 2 gool 3 caawiye ka ahaa kulamahan oo ka tirsan tartanka FA Cup-ka ayaa sii socon doona oo ilaa iyo Khamiista la ciyaari doona kulanka xiisaha leh ee u dhexeeya kooxaha Chelsea iyo Liverpool ayaan goordhow eegi doonaa balse markan haddii aan eegno ciyaaraha Nation League-ha ayaa isku adkiisa la sameyn doonaa caawa iyada oo Nation League-ha xilli ciyaareedkiisa 2020-2021 isku aadkiisa la sameyn doono maanta Talaado ah waxaana uu ka dhici doonaa Amsterdam isku aadkan ka dhacaya Amsterdam ayaana waxa uu kala qaybsamaa ilaa iyo ama uu yahaba groupka D groupka A ayaana waxa ku jira ilaa iyo 4 dhariga koobaad waxa ku jira xulalka Portugal Netherlands England iyo Switzerland halka dhariga labaad qayb ka yihiin Belgium-ka France Spain iyo Talyaaniga halka sidoo kale dhariga saddexaad Bosnia Herzegovina Ukraine Denmark iyo Sweden ay qayb ka yihiin ama ku jiraanba dhariga afraadna waxaa isku bahaystay Croatia Poland Germany iyo sidoo kale Iceland groupka B oo u qaybsan ilaa iyo 4 dhari waxaa markaa dhariga koobaad ku wada jira xulalka Ruusiya Austria Wales iyo sidoo kale Czech Republic halka dhariga labaad ee ku wada jira Scotland Norway Serbia iyo sidoo kale Finland dhariga saddexaadna waxaa ku jira xulalka Slovakia Turkiga Republic of Ireland iyo sidoo kale Northern Ireland halka dhariga afraadna ay qayb ka yihiin Bulgaria Israel Hungary iyo sidoo kale Romania groupka C oo isna 4 dhari ah dhariga koobaad waxaa ku jira Greek Albania Montenegro iyo sidoo kale Georgia halka dhariga labaad ay ku wada jiraan North Macedonia Kosovo Belarus iyo sidoo kale Qobrus halka dhariga saddexaad ay ku wada jiraan xulalka Estonia Slovenia Lithuania iyo sidoo kale Luxembourg dhariga afraad waxaa ku wada jira xulalka Armenia Azerbaijan iyo sidoo kale Kazakhstan iyo Moldova groupka Dina waxa uu ka qayb ka yahay ama uu yahay baa 2 dhari oo kaliya waxaana ku wada jira Gibraltar Faroe Island Latvia iyo sidoo kale Liechtenstein halka dhariga labaad ay ku wada jiraan Andorra Malta iyo sidoo kale San Marino kulamadan waxaa kulanka koobaad ama la ciyaari doonaa inta u dhaxaysa waayraha September 3 ilaa iyo 5 2020 halka kulamada labaad la ciyaari doono 6 ilaa iyo 8 September 2020 isla sanadkan October 10 ilaa 8 ilaa 10 waxa la ciyaari doonaa kulanka saddexaad halka kulanka afraad la ciyaari doono 11 ilaa 13 bisha October waxa sidoo kale kulanka shanaad la ciyaari doonaa 12 ilaa 14 November halka sidoo kale kulanka lixaad la ciyaari doono 15 ilaa iyo 17 inta u dhaxayso November 2020 balse finaalaha ayaa waxaa suuragal ah in la ciyaaro June 2 ama 3 ama 6 ee 2021 dhanka kale haddii aan eegno qodobada kale ee barnaamijka naadiga Manchester City ayaa xaqiijisay saxiixa daafaca reer Brazil ee lagu magacaabo Yan Quato naadiga Stevenska ayaa xaqiijisay in ay la gaareen heshiis daayiraha lagu magacaabo Yan Quato kaas oo ka tirsan Braziliankan kooxda ama ka yimidba Corteba 17 sano jirkan ayaa waxa uu warqada qalinka duldhigay isla markaana u saxiixay heshiis 5 sano ah kooxda ka dhisan Etihad ciyaaryahankan ayaana waxa haatan uu yahay leeyahay ciyaaryahanada ilqabadka leh ee Pep Guardiola oo wax qabadkiisa soo jiitay ciyaaryahanada ka hooseysa 17 sano jirada ee ka soo muuqday tartanka club walikabaha iraahde daafacan ayaa ah ama ka soo muuqday 13 kulan ee qaranka Brazil xidigaha da'dooda ka hooseysa 17 sano jirada waxa soo abuuray fursado badan halka uu ka wacan yahay marka la eego daafacyada kale xidigan ayaana qayb ka ahaa xidigaha walikaabka ee ciyaaryahanada Brazil ee ku ciyaaraya wadankooda nadigan sida laga soo xiganayo Manchester Evening News
bishii January ayay aad u doonayeen ciyaaryahankan kooxda Citizens balse waxay ka shaqeynayeen daayirahan ay leeyahay ilaa iyo maalintii ugu dambeysay ee suuqa balse haatan ayay dhameystirayaan ciyaaryahankan balse uma badna in sida ugu dhaqsiyaha badan uu kooxda koowaad uga soo muuqdo ciyaaryahanka Yan Gueto ayaa waxa uu qayb ka yahay ayaa leeyahay xil ciyaareedkan kooxdiisa Korbita balse waxa uu weli sugayaa in uu hal kulan uga soo muuqdo kooxda ka dhisan Zareeda dhankeeda dhanka kalena naadiga Arsenal ayaa qorshaha ku darsatay in ay 250 milyan oo pound ay kula soo wareegto daafac ka tirsan kooxda RB Leipzig Gunners-ka ayaa u dhow in ay 250 milyan oo pound ay u gudbiyaan kooxda RB Leipzig si ay uga helaan daafacooda lagu magacaabo Dayat Mikel Arteta kooxdiisa ayaa si aad ah loola xiriirinaya laacibkan u dhashay Faransa ee toddobaadadii ugu dambeeyay hase ahaatee 22 sano jirkan ayaa sidoo kale waxaa xiiso uga imanaya kooxaha Chelsea Tottenham Hotspur sidoo kale Bayern Munich sida laga soo xiganayo wargeyska lagu magacaabo Kicker naadiga Leipzig ayaa qudheeda u ogolaan karin ciyaaryahanka qaranka Faransiiska ee da'dooda ka hooseysa 22 sano jirada u matala uu kaga tago naadigooda wax ka yar 250.3 milyan oo pound ciyaaryahankan qandaraaska uu kula jiro kooxda Julian Nagelsmann waxa uu ku eegay xagaaga dambe warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa daafacan in sidoo kale diiradda uu saarayo qodhiisa dhanka iyo Jarmalka inkastoo mustaqbal uusan ku lahayn ayaa leeyahay kooxdiisa ciyaaryahankan 20 kulan ayuu ciyaaray Leipzig xil ciyaareedkan halka sidoo kale uu yahay marka la eego ciyaaryahan waxqabad kule kooxdiisa laga sareeyo kaliya 3 dhibcood hogaanka horyaalka Bundesliga Claudio Bravo waxa uu qarka u saaran yahay inuu ka tago naadiga Manchester City shabaq dhowraha kooxda Manchester City Claudio Bravo ayaa u dhow ka tagataanka kooxda Pep Guardiola kaasoo qandaraaskiisa u dhacay dhamaadka xilli ciyaareedkan 36 sano jirkan ayaa ku bilowday ciyaartii Axadii ee tartanka EFL Cup-ka finalkiisa kooxda Citizens ay kaga hortageen kooxda Aston Villa hase ahaatee ciyaaryahankan ayaa tartankani qayb ka ahaa markiisii saddexaad ama sanadkiisii saddexaad oo xiriir ah sida laga soo xiganaya Evening Standard ma jirto qorshe ayaa leeyahay uu qayb kaga sii ahada laacibka qaranka Jili isla markaana uu ku helo heshiis cusub oo qandaraas kordhin ah natiijada shabaq dhowrahan ayaysan u badnayn in markaa uu baaqi ku sii ahado isagoo meelo kala raadsanaya warbixinta ayaana sheegaysa Bravo in markaa loo soo bandhigay ku biiritaanka dhanka iyo MLS-ka kooxda New York City hasaatee shabaq dhowrihii hore ee kooxda Barcelona ayaa miisaamaya fursad kale oo uu u dhaqaaqo kooxo kale halkii uu ka aadi lahaa dhanka iyo MLS-ka Bravo ayaa ciyaaray guud ahaan 59 kulan oo Premier League kooxda haysata ah tan iyo markii uu dhaqaaqay 2016 balse nafs ahaantiisa waxa uu yahay keed ciyaarahanka lagu magacaabo Ederson kaas oo laga doorbido marka la eego joogitaanka Etihad Stadium dhanka shabaq ilaalinta waatahay markan waxaan eegi doonaa ciyaarta xiisaha leh ee u dhaxayso kooxaha waaweyn ee ku xafiltama dhanka iyo England ee Chelsea Liverpool oo qayb ka ah tartanka FA Cup-ka ciyaaryahanka lagu magacaabo Andreas Christensen ayaa sheegi doona kulanka wareegashanaad ee FA Cup-ka oo ay la ciyaarayeen Liverpool kadib dhaawac soo gaaray Kepa Arrizabalaga ayaa laga yaabaa in loo dhiibo fursad uu goolka ku maamulo isaga oo la iska ilaaway isbuucidii la soo dhaafay Tommy Abraham, N'Golo Kante, Christian Pulisic iyo Callum Hudson-Odoi ayaa dhammaantood dhaawac ah daafaca Liverpool ee Joe Gomez ayaa taam ah mar kale kadib markii uu ka soo kabsaday dhaawac ka soo gaaray oo uu sheegay guuldaradii lama filaanka ahayd ee Sabtidii ka soo gaartay Watford James Milner ayaa sidoo kale soo laabtay kadib markii uu ka maqnaa 2 kulan oo dhaawac muruq ah qabay ciyaartoyda qadka dhexe ee lagu magacaabo Henderson, Naby Keita iyo Shaqiri ayaa weli dhaawac ku maqan ciyaaryahanka lagu magacaabo Kijana Hoever iyo sidoo kale Nico Williams oo ka soo muuqday wareegii hore ee ka dhanka ahaa Shrewsbury ayaa ku lug lahaan kara isku diyaarinta kulanka Stamford Bridge
laakiin ciyaaryahanka lagu magacaabo Harvey Elliott ayaan diyaar ahayn maadaama uu u safray ciyaaryahanada ee da'dooda ka hooseysa 19 sano jirada ee wareegga 16 UEFA Youth League oo ay kula ciyaarayaan Benfica gudaha Portugal. Tan waxay noqon doontaa is-aragoodii ugu horeeyay FA Cup ee u dhaxeeya kooxahan tan iyo 2012 finaalaha. Naadiga Chelsea ayaana markaasi guul 2-1 ah gaartay. Chelsea ayaa ku garaacday naadiga Reds 5 ka mid ah 7 jeer oo la soo dhaafay oo FA Cup-ka ay isku soo arkeen. Tani waa markii saddexaad oo ay kulmayaan xilli ciyaareedkan labadani kooxood. Liverpool ayaana guul 2-1 ah ku soo gaartay horyaalka garoonka Stamford Bridge bishii September. bisha kadibna UEFA Super Cup-ka ayay markaa rigoorayaal isla gaareen ciyaar ka dhacday Istanbul. Naadiga Chelsea ayaa guul heshay marka la eego FA Cup-ka 6 jeer qarnigan waxaana ay la mid tahay naadiga Arsenal. Tani waa markii shanaad ee xil ciyaareed ee naadigan ay gaarto marka la eego FA Cup-ka wareegiisa shanaad. Blues ayaa sidoo kale qasaartay hal ka mid ah 12 jeer oo la soo dhaafay FA Cup-ha ay ciyaareen waxayna haystaan inta kale 8 guulood iyo 3 barbaro ah. Naadigan ayaa waxa ay garaacday kaliya marka la eego ama ay qasaaro kula kulantay hal jeer 12 kulan oo garoonkooda FA Cup-ka ay ku ciyaareen waxayna ku haystaan 11 kale hal barbaro iyo 10 guul ah. naadiga Chelsea waxay shabaq ilaashi samaysay 5 ka mid ah 6 jeer ee la soo dhaafay FA Cup ay ku ciyaaraan garoonka Stamford Bridge. naadiga Liverpool waxay qasaartay 2 ka mid ah 3 jeer ee ugu dambeysay ee dhammaan tartamada ay ciyaareen. naadigan Reds ayaa sidoo kale ku hogaamisay marka la kaliya 34 daqiiqo ama hogaanku u qabanaysay 4 kulan tan iyo markii ay soo laabasho sameynayeen. naadigan waxa ay markaa gaartay quarter finalaha kaliya 2 jeer tan iyo markii ay qasaaro la kulmeen ama ay raadeen tan markii ugu dambeysay oo ay ku guuleysteen FA Cup-ka 2006. Liverpool ayaa guul haystay kaliya hal ka mid ah 6 jeer oo la soo dhaafay FA Cup oo ay banaanka ku soo ciyaaraan waxayna haystaan 2 barbaro iyo 3 qasaare ah. naadigan sidoo kale waxa ay goolin sameeyeen 15 kulan ee la soo dhaafay oo ay banaanka ku soo ciyaaraan FA Cup-ka tan iyo qasaaro hal iyo eber ah markii ay kala soo kulmeen naadiga Manchester United ee 2011. ciyaartan u dhaxaysa kooxaha Chelsea iyo Liverpool garoonka Stamford Bridge ayay ka dhacaysaa waxayna qayb ka yihiin wareegga shanaad ee FA Cup-ka caawa 11 oo rubi dhiman ayaana la daawan doona. haddaba ciyaartan waxaa ila falaqeyn doona oo stuudiyaha igula sugan maxamed cabdullaahi boy oo ah markaasi taageero kooxda Liverpool ah balse si guud ayaan labadani kooxood ciyaarahooda wax ugu weydiin doonaa. boy bal kulankan u dhaxeeya kooxaha Chelsea iyo Liverpool ay caawa isku qabanayaan haddii aad eegto aragti ahaantaada. aad u mahadsan tahay hana adii dhammaan dhageystayaasha iyo farsamayaqaanka ee idaacadda noo farsameynaya radio Himilo 102.5 aad u mahadsan tahay sida ay u martiqaaday barnaamijka ciyaaraha. markaan eego kulankan Chelsea iyo Liverpool oo cawada FA Cup-ka way ciyaarayo waa kulan aad u xiiso badan marka guud ahaan kor laga eego labada naadi oo aad u waaweyn kulankana oo noqon karo kulan aad u xiiso badan. Liverpool macquul ayay noqon kartaa inay ku soo tababar club shaxdiisa rasmiga ma isticmaali doono sida aaminsanahay. waxay noqon doontaa shax macquul ah oo ciyaartooyda isku dhafi doono da'yartana fursad qaarkood lagu siin doono sida laga dhansanayo. laakiin Chelsea iyo tartanka FA Cup-ka muhiim oo u yahay maadaama Champions League laga soo adkaaday oo cadaadis saaran yahay. waxay isku dayi doonaan shaxdooda rasmiga iyo shax macquul inay ku dheelaan si Liverpool ay u adkaadaan. marka kulankan aad u xiiso badnaa doona waxaan u rajeynayaa Liverpool inay ka soo bixi doonto si walba ay noqoto xataa da'yar ama hadii la isku dhafo laakiin goolhay Andrian ayaa jeclaa lahaa inuu club ku safo. kulankan ay Andrian waxa ogsoonahay Alisson markuu ka maqan yahay oo kale inuu sameeyo badbaadin cajiib ah sidii Everton oo kale kulanka kaga soo baxnay fursado qaali ah Everton ugu sameeyay oo kale inuu ka badbaadiyay. cawadana Chelsea waxa uu adkaan karnaa kaliya inuu tababar club oo shax macquul ah ciyaartooyda Liverpool aad ay u daalan yihiin hana markii la eego ambiitinka la jibiyay ambiitinkana sabab waxa uu ah la dhihi karaa aniga aaminsanahay ciyaartooydu aad u daaleen iyo kulanka Watford aan la filanaynin in Liverpool lagu celin karo. Liverpool waxa ogsoonahay in waxba aan laga qaban karin oo sanadkan horyaalka ee 22 dhibcood hogaanka ay ku qabatay kooxaha waan la wada sugayay mar in ambiitinka laga jibiyo kooxaha sida Arsenal ba ku faraxday. waxa la isdhahay horta kulanka ambiitinka Arsenal anaga jibinayna dhahayeen ana ilama muuqanin koox weyn inay jibinayso. waan jeclaa in ambiitin ku qaado laakiin waxa aad ugu faraxsanahay anoo Liverpool ah in la dhaho
liverpool abiitig laga jibiyey dad horyaal qaadoo kale in macnaha lagu dabaaldego marka aada uu faraxsanahay liverpool waxaa daawo jiray oo aniga aan taageerayo aan kala jecleen iyadoo laga badinayo kulamo 4 kulan markay dheesho 1 kulan 2 kulan laga badinayo hadda anigoo oo hal sano aan beaten ahaa oo horyaalka 3 sano Anfield aan laga badinin kulankan haddii Anfield lagu garaaci lahaa ama ay jibin lahayd kooxaha waaweyn midkood tababaraha aan kooxaha aan cadaawada naga dhaxayso Manchester Arsenal oo kale way ka sii darnaa lahayd marka habeenkaas waxay nagu ahayd habeen cajiib ah ciyaartooydan aad ay u daalan yihiin waxaa dhihi lahaa in ciyaartooyda qaar fursad la siiyo qaladkana waxa uu ka jiray sida aaminsanahay Lovren oo la keenay Lovren dhaawac ka imaaday Gomez iyo Van Dijk isla qabsadeen sida ogsoonahay isbedelkaas dhacay oo tababaraha uu ku qamaaray oo Lovren uu safay as dhihi kara ciyaartooydu aad u daalay kulamo aad u xiiso badan ciyaarnay Atletico Championka naga soo adkaatay oo macnaha las dhihi kara iyadana garoonka Anfield waxa ku sameyn doona comeback ama ha noqoto waa garoonka Anfield waa garoon aad u cajiib ah markii kooxaha waaweyn taageerayaasha will never walk alone lagu qeeliyo waxaa aaminsanahay in Liverpool ee Championka Athletic ay ka reebi doonto habeenkii Championkan waxaan ugu sameeyay ogsoonahay waa tahay caawa waxaad qaabilaysaan idinkoon iyo jab idinka muuqato kooxda Chelsea maadaama aad ciyaari doontaa koobka macallin Kloppna waxaa lagu eedeynayaa hadda in koobka yaryaraa ee laga ciyaari ama maxalliga ahaa kale in uusan muhiimad siinaynin maadaama uu soo qaaday koobkii weynaa ee Yurub sidoo kalena Championki haddana Premier League oo muddaba kooxda ay ka oomaneed hadda gacanta u gelinaya waxa la leeyahay muhiim uma arka koobabkan isaga oo yasaya markaad eegto koobabka yaryar macallin Klopp fursad ma u tahay kooxda Chelsea in koobkan ay ka reebto fursad macquul ah noqon kartaa maadaama anaga muhiim nooma ahan sida Klopp anaga 30 sano horyaal aan Premier League aan qaadin 30 horyaal Premier League aan qaadin oo naadiga Liverpool aan u oon qabno in horyaal ama Premier League aan ku guuleysano taas la dhihi karaa in xooga aan saarnay Premier League sida uu guuleysan lahayd sanadkii la soo dhaafanay Champion ayaan ku guuleysanay oo Premier League hal dhibc loo qaaday sanadkan Championkana waa u tartami karnaa oo xooga saareena Premier League waa mid macquul ah oo ahaaday walow 4 kulan aan ku xaqiijin doono marka Chelsea sidaas ay macquul u noqon kartaa in xooga u saaraan koob la'aan maadaama ay yihiin oo kaalinta afraadna ay qiilka gali karto mid kale hadii aan ku sii darsado Liverpool had 79 dhibcood ay leedahay Man United ku saabaq 79 ay ku qaaday markii laga eego halkaas Arsenal oo kale markay qaadaysay 38 kulan waxa aaminsanahay barajadeeda aad badneed ilaa 10 baraja gashay marka Liverpool 28 kulan horyaalka dhibcaha ay soo hooysay muhiim u yahay marka loo eego ama boqol iyo dhowr dhibcood waa gaari karnaa aaminsanahay haddii barajadeena iyo guuldaradeen ay yaraato kulamada soo xiga tartankan hadda caawa aad ciyaaraysaan waxa uu yahay waa FA Cup-ka Chelsea-na taqaabilaysaan halista ugu badan aad leedahay waad kala kulmi kartaan caawa Chelsea maxay tahay markaad eegto ciyaaryahanadooda ama idinku noqon kara caqabad ciyaaryahanada caqabad uu noqon karo waxay noqon kartaa Abraham dhaawac ku maqan yahay fila Abraham ay daran aniga laakiin ciyaartooyda kale waa ku kala soonahay in daaficiina la adkeen doono oo sida uu macquul u noqotaba hatta hal Van Dijk lagu soo daro hadii la helo ama Gomez oo ku soo dhax qariyo waxa kulli in Matip oo kale ayaa in la soo safi doona Regina marka waa arkeena kulli kulankaas laakiin ani si walba ay noqoto Liverpool inay adkaada jeclaa hatta hadii daayarta iyo ciyaartooyda qaar la isku dhafo laakiin Chelsea iyo xoog cadaadisna soo saari doonto caawada garoonkoodana uu yahay Stamford Bridge kulanka aad u xiiso badnaana sida dareemayso hana marka Liverpool guula u rajeynaa kulli 3-1 ku saadaalina inaa ku adkaan karo anoo taageernimo saadaalinayo mid marka xaga laakiin dhanka qaweernimada markii loo saadaaliyo waxay noqon kartaa mid cadaadisna la saari karo marka waa kaas waa tahay maxamed boy maadaama hadda basaadaalshii iyo wixii sii raacsatay booska isleedahay caawa way isku qaban doonaan kooxahan ma weerarka madaafaca soo qad ka dhexe markaad eegto kooxahan is argadoodii hore adoo u qiimeynaya
kooxaha markaa qiimeeyo markii horyaal la ciyaarayo liverpool shaxdeeda koowaad ay ku ciyaarto aad iyo cadaadis loo saaraa oo zaa'ida loo weeraraa laakiin hadda waxaa qadka dhexe ayuu culeys ka imaan karaa ciyaartooy menamin oo kale la soo safi karaa Chamberlain oo kale macquul in bedel lagu keeno Origi oo kale waa macquul in la keeno xidigaha keedka badanaa kasoo muuqan karo laakiin qadka dhexe iyo weerarka anaga aad u xooganaan karnaa iyo Andriano gadaal noo xoojinayo marka dagaalanka wuxuu ka jiri karaa qadka dhexe oo aad la iskugu hadii ay macquul noqoto kale Fabinho xataa kulli walow horyaalka ninkaas waa ku jiro kooxda koowaad oo ka mid yahay haddana ciyaaryahanada safka koowaad marmar ayaa lagu soo daraa koobabka kale waa tahay maxamed cabdulaahi aad baad u mahadsantahay adiga mudan waa hagaag dhegeystayaal haddii aan eegno qodobada kale ee barnaamijka naadiga Chelsea ayaa kaga horeysa kooxaha kala doonista ciyaaryahanka lagu magacaabo Alex Telles Blues ayaa haatan waxay haysataa fursad ah in ay la saxiixato ciyaaryahanka boorta daafaca uga ciyaaraya Alex Telles ciyaaryahankan ayaa dhaliyay 18 gool 150 kulan oo uga soo muuqday naadiga Boortaqiiska ciyaaryahanka dambeedka bidix ayaan xiiso uga imanaya kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub Chelsea ayaana haatan u haysato fursad ciyaaryahankan in la saxiixdaan sida laga soo xiganay wargeyska The Express macallin Frank Lampard ayuuna raadeerka u saaran yahay ciyaaryahankan dhanka kalena xilli ciyaareedka Premier League ayaa la dhameystirayaa albaabada garoomada oo xiran haddii coronavirus uu sii fido horyaalka Premier League ee xiriirka kubadda cagta ayaa lagu soo waramaya inay ka shaqeynayaan qorshayaal isku markaa habeen ah oo ay u arkaan ololaha ugu soo horeeya ee Ingiriiska ama kan ugu sareeya iraahdee oo ku ciyaari kara garoomada albaabada u xiran haddii coronavirus uu faafo dhowr ciyaarood oo isboorti ah ayaa horey loo baajiyay ama la kansalay toddobaadii la soo dhaafay sababtoo ah ayaa leeyahay sabab la xiriirta dhaawac walaac laga qabo ayaa leeyahay faafitaanka fayruska oo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen dad ka badan 3,000 oo qofood sida laga soo xigtay dasan waxaa jirta fursad ah in xil ciyaareedka Premier League uu ku soo gabagabo kulamada ka harsan in ay ciyaaraan taageerayaal la'aan xidigaha United Kingdom gudaheeda waxaa laga xaqiijiyay 36 kiis oo ah fayraska laga helay waxaana warbixinta ay sheegaysaa in madaxda FA-ga ay aqbali doonaan dhammaan talada dawladda dhanka kale xagaaga Euro 2020 oo ka qabsamaya 12 magaalo oo Yurub ah ayaa la filayaa in uu hore u socdo sidii loo qorsheeyay naadiga Arsenalna waxaa lagu booriyay in ay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka lagu magacaabo Raul Jimenez si uu bedel ugu noqdo Alexander Lacazette ciyaaryahankii hore ee kooxda Blues ninka lagu magacaabo Craig Bailey ayaa u arkay in naadiga Arsenal inay u dhaqaaqdo waryahanka kooxda Wolverhampton Wanderers ninka lagu magacaabo Raul Jimenez si uu ugu bedelo ciyaaryahanka lagu magacaabo Alexander Lacazette Jimenez ayaa wacdar ka dhigay labadii xilli ciyaareed ee uu joogay naadiga Wolves isagoo u dhaliyay labada xilli ciyaareedba 13 gool xidiga reer Mexico ayaana bartamameed u ahaa United-ka bishii Janaayo laakiin waxaa la aaminsan in Arsenal ay tahay midda loo arko in ay u dhaqaaqdo ciyaaryahankan si uu mustaqbal wanaagsan ugu yeesho kooxda Emirates Stadium ka dhisan wararka ugu hadalhaynta badan haddii aan eegno hal iyo labana United waxay hogaanka u haysaa doonitaanka ciyaaryahanka lagu magacaabo Jadon Sancho kaas oo ay lacag rikoorka Premier League ah ku doonayaan sida laga soo xigay wargeyska Telegraph dhanka kalena naadiga Real Madrid sidoo kale kooxda Paris Saint-Germain waxa ay si dhow ula socdaan xaaladda ciyaaryahanka lagu magacaabo Timo Werner iyada oo ciyaaryahankani weerarada xidiga Sancho oo ay doonayaan laacib qaranka England qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka ayaan isla joognaa inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka xulka tan iyo kuleeta dambe nabadgelyo